muuqaalka wajiyadooda ayaa sheegaya wax kasta. muddo 3 bilood ah ayaa laga joogaa markii uu dhacay weerarka ugu cuslaa taariikhda dalkan 14 Oktoobar. waxa aan la fariistay oo aan kala sheekaystay saxafiyiin reer Muqdisho ah sida uu u saameeyay noloshooda, waxaana wariyaashan qaarkood ay ka mid ahaayeen dhibanayaashii xaaladooda caafimaad ay halista ahayd ee loo qaaday dalka Turkiga, Suudaan iyo Kenya. 9:23 daqiiqo xilli ay tahay oo la isku diyaarinayo salaadii casirka. aniga waxaan ku leexday meesha weysadaan ku leexday si aan isku diyaariyo inaan weysaysto. markaan weysadii aan bilaabi rabo oo aan gacmihii shaatiga aan furfurtay oo aan weysadii bilaabi rabo waxaa dhacay qarax aad u weyn runtii oo aan weligay mataqaanaa aan isdhihin waa u joogi doontaa qarax noocan oo kale ah. markii qarax u dhacay waxaa bilowday in jawiga uu isbedelo oo mataqaanaa ay noqoto meeshii ay noqoto meel mugdi badan oo boor badan oo aad u boor badan ay noqoto oo qofka waxba uu u jeedi waayo, isla markaana waxaa nagu soo daatay wax dhimbilo ah oo sidii roobkii u da'aya oo runtii aad moodo mataqaanaa 1 saac iyo 1 daqiiqo iyo bar ku dhawaad socday roobka kale. runtii aniga waxaan ku jiray xoogaa meel xiran, waxbaa igu soo baxay, waxbaa lugta iga dhacay oo aan markaas mooday xabad oo mataqaanaa igu dhacday si xun oo markaa lugta ay jabtay. sidaa awgeed anigoo isdhahaya mataqaanaa qarax sida caadiga loo bartay in meeshaan haddii qarax ka dhacay waa la soo gelayaa oo waa la soo weeraraya, anigoo niyadda ku haya waxaa mataqaanaa aan micnaha ii suurageli weysay in aanoo lugta ka jabnaa meeshii joogo. waxaan isiri naftaada badbaadi maadaama mataqaanaa meeshaan la isugu soo geli doono. dan waxaan bilaabay inaan hal lug ku cararo iyadoo meeshii ay boor badan tahay oo mataqaanaa xaaladdu ay adag tahay. waxaad maqlaysaa sheekooyin cajiib ah oo ka hadlaya sida dadku uga badbaadeen halkan oo ah meel laga qaxweeyo, waxaana ay ka mid ahayd meelaha ugu daran ee dad badan ay ku dhinteen. dadka aadka dhibaatadu ugu dhacday waxaa ka mid ah wariye Maxamed Cumar Baakaay oo ka mid ah dhalinyarada u soo shahatagi jiray Hotel Safari oo ku yaala isgoyska Soobe, oo aan kula sheekaystay isagoo fadhiya goobtii uu ku dhaawacmay. waxaan ku dhex jiray hotelkan hadda aan fadhiyo maatadan aan ku shaaheynayo. waxaan galay masaajid yar oo aan rabay inaan xilliga salaada casr aan dukado. jawiga runtii aad buu qurxonaa, dadku waa qadeynayeen, shaqo fiican ka socotay, hotelkuna aad buu u dhisnaa. meeshaan arkayso si ka qurux badan ahayd. hal mar oo keliya waxaa iga tegey maskaxdii iyo xusuustii wixii meesha ka dhacay, explosion markuu dhacay dareenkayga dhinaa tegey. saacado kadib ayaan waxaan noqday qof mid soo noqday. waxaan arkay geesihii, waxaan arkay meeshii wada dunsanba. qaraxaas weyn markuu dhacay wuxuu itusiyey cabsi aad u weyn, walwal. waxaan arkay anoo dhiigayo, waxaan arkay dadkii ila fadhiya masaajidka ku dhex jiray oo wada dhiigayo. runtii horta meeshaas waxay ahayd meel haddii lagu dhimanayo horta meesha ugu fiicneed waay horta haddii la dhimanayo, laakiin ilaahay wuxuu ugu daray dadkii aan dhiman ee dhaawacmay. waxaan ka soo baxay, waxaan bilaabay inaan istaagi karo. markii qaraxa dhacay halkaana taabtay, dhiigaa ka socday, waa istaagay. inaan istaagi karaan arkay, talaabaan qaaday, waxaan arkay inaan talaabo qaadi karo. markii dambe waxaan u socday si heel ah anigoo aan balansigeyga runtii oon fiicnayn. halkaanaan soo maray, halkaasaan gudbay. markaan sii marayna dad oo dhintay, kuwa dhaawaca oo qaarkood ay dhahayeen maaragtay walaalo iqaad. markaasaan waxaan u salaamayay sidii qofaan hadli karin oo kale, oo aan yacni action waxaan tusinayay inaan waxaan caawini karin. waxaan ka baxay meeshaan oo wada dunsan, isbitaal lii geeyey. markaan meesha tegey dhaawacayga markaan arkay iyo dadka la keenay meesha, marka waxaan ka badbaaday 500 oo qofood ilbiriqsi meel ay ku dhimatay. waa dareemi kartaa marka. muddo kadib maskaxdeedii ilaahay soo ii badbaadiyey iyo runtii ilaahay baa mahad badan iyo saan u soo caafimaaday. niyadda igama jabin, iskuma dayn inaan baxo, iskuma dayn inaan cararo. maantana waa arkaysaay waxaan fadhiyaa goobtii qaraxa ka dhacay aan weli ku shaaheynayaa. marka noloshu waa isdaba joog, waa isdabayaal, horaan loo soconayaa. halkani waa Hotel Safari. waxaa garbahayga fadhiya 4 qof oo dhalinyaro ah oo ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay halkan oo ku burburtay qaraxii 14 Oktoobar. waxaana weli ay halkan u yimaadaan inay galab kasta ku qaxweeyaan oo ay fadhiistaan, taas oo muujinaysa in weli aysan meesha ka bixin rajada nolosha dadka Soomaalida. waxay u ahayd maalin uu goobjoog u ahaa meel cabsi, murugo iyo walwal badan ay ka jirtay. waxaana soo gaaray dhaawac. Cabduqaadir Okay oo ah suxufi ka tirsan idaacadda VOA waxaan weydiiyey isagoo ka soo laabtay dalka Turkiga oo loo qaaday
inuu ii sharaxo ogaalkiisa qaraxii Soobe kaas oo uu ku dhintay Cali Nuur Sayid Axmed oo ahaa sawirqaade la shaqaynayay 14 Oktoobar xilli galab ah anigoo ka imid shaqo una diyaar garoobay dhamaystirka shaqadii maalinta soo qabtay qarax weyn wuxuu ka dhacay halkan meeshaan joogna daban hotel Safari markaasna waxaan ka soo baxay dhismo ka soo horjeeda hotelkan waxaana rabay in halkan imaado inaan Safari imaadana waxay ka mid ahayd nolol maalmeedkayga caadiga marka loo eego imaanshaha halkan galab walba imaan jiray waa meel aan ka qaxweeyo waa meel inta badan ay shaah ka cabo marka nasiib wanaag ama nasiib darro intaan hotelka soo gaarin qarax baa dhacay qaraxaasna ka mid noqday dadku ugu horeeyay oo saameeyay qaraxu waxa uu la eekaay wuxuu ahaan uma sheegi karo xitaa maqal qarax dadku way maqleen magaala laakiin ani maan maqal laakiin waxaan ogaa in maaragtay aan dhismaha ka soo baxayay Safari aan rabay kadibna qaraxaas ay ku dhacay dhaawac weyn bay soo gaaray oo guud ahaan jirkayga saameeyay walina maaragtay muddo kadib la dareemay saameynta qaraxaas ugu yeeshay markaad fiirisay jirkayga meel ka mid oo kale iyo wali maaragtay waxa ka jira saameyn qaraxi ah laakiin haddana ilaa mahadis dad badan oo Soomaaliyeed baa meesha ku baabay marka loo eego dadka dhintay kuwa la waayeen aan waxba meesaygaan marka ilaa ma hadda iskale laakiin waxaan xusuustaa in qaraxaas uu mushkilad weyn iyo dhibaato weyn uu ahaa gaar ahaan anigu saameeyay waxaan rabaa inaan ilaabin oo ka tagin in saaxiibkaygii qaaliga ahaa ila shaqeynaya cameraman-kii ahaa Cali Nuur Sayid Axmed oo aan wada joognay oo shaqo ka wada nimid inuu goobta ku geeriyoodo oo meesha ku baxay iyo saaxiibo kale oo insha Allah oo meeshan ka soo baxay joogay marka waxay ahaaday maalin murugo badan oo ku dhawaad 20 qof oo saaxiibo ugu dhawaa shaqo ay la dhaxaysay geeriyoodeen markaan Turki xaaladdeedu soo wanaagsanaatay saaxiibo badan oo qaarkood gudaha Soomaaliya joogan qaarkoodna adduunyada meelo badan joogan waxay itusinayeen inaan tahriibo inaan dalka dib ugu laaban in meesha dhibaato weyn ka dhacday oo meel ugu laabtaysan ahayn laakiin go'aankayga Cabdulqaadirhana wuxuu ahaa inaanan meel aado Axmed Haadi waa saxafi ka mid ah dadka tirada badan ee qaraxii ka dhacay Soobe saameynta ku yeeshay Axmed waxa uu iga sheekeeyay sida saaxiibadii ugu dhaawacmeen hotel Safari halkaas uu ku sugnaa maalintaas waxay ahayd 3:24 daqiiqo galabnimo ahayd masaajidada hotelkan dariska laha qayb kamid ah salaada lagu jiray kuwa la qiimay masaajidkan hotelkan masaajid inta ku laha masaajidka salaada waa loo istaagsanaa wali mikrofoonka wadaadku afku ku hay ma lagu dhawaaqin anigii saaxiibkii Cabdiqani markaa soo galay baad hal daqiiqo markuu qarxu dhacay iyo markaa hotelka soo galay hal daqiiqo u dhaxay difference hal daqiiqo ah 1 minute kaliya waxaan istaagnaa maalinta wax xusuusanayaa tiirka intaas ku yaala taagnaa maalinta wax xusuusanayaa tiirkaas markaa saa soo galay hotelka aniga Cabdiqani maalinta barnaamij yarna sameeyay ku balansaneen computerka saa wala soo kala baxay qarxu dhacay qarxu markuu dhacay qarx xoog laba ahaa runtii marka waxaan weysaanay hotelka in la soo weerar oo la qarxiyay lugtay waxay galeen meeshii dhan waxay noqotay waa isqabsatay mugdi qof u jeedo waa la waayay marka dhinacana u dhaqaaqay dadka barxadda hadda fadhino dhan fadhiyo dadkaas waxay dadkii tagay bay ahayd dadkii geedkaas tiirasha fadhiyo kale dadka inay ku jiro kale qayb dhimatay qayb baad isugu jira laakiin dadkii barxadda fadhiyo dhan albaabkii ku soo go'ay qarax oo dhan ku dhacay intan waxa yaalay nin qeylinayo leh hayga tagina saaxiibayaalo gadaal qof baa ka soo gurguurinay macna xaalad waxay ahayd aad iyo aad u naxdin baxdan intaan ka baxay saaxiibkii Cabdiqani intaas taagan u tagay waxa yiri meeshan mugdi bay waxba isma arkeen booda socday wixii nin intaan ka baxna luuqa naga bixbaan marka had meeshu aad u duntay laakiin markaas wali waa socotay intaan ka baxnay saaxiibkii Cabdiqani luuqa ka jabnaa asaga markaas aan laakiin luuqna kama jabna dhaawac ay soo gaar kaliya lugta waxaan galay guryahan dariska la hotelkan galay guri haddana waxa uu tagay dadka ay ku soo dumay oo wiil dhalinyaro ka shaqeynay ku soo dumay aniga dadkii guriga waxaan ka shaqeynay inaan la soo saaro qofkaas runtii markaa xusuusato ani waxaan weysay markii hore qarxi xamar ka dhici jiray oo dadka 20 30 hadda ugu bataan 40 ay ku dhiman jirteen laakiin markii dambe 500 oo qof meel ay ku dhimatay maalin oo waliba aad ugu dhaway yar kale hadda wareysanayso Cabdiqaadir saaxiibkii asaga meesha laamiga qarxu ka dhacay u dhex taagnaa sanaftiisa marka waxaad maalin aad u naxdin badan runtii dhacdada qaraxii Soobe
waxa ay ahayd musiibo murugo iyo qalbijab reebtay. Aaswadareedyo ayaa Muqdisho laga sameeyey, waxaana uu ahaa weerarka ugu weynaa ee Afrika. Dadka qaar ayaa ku matala in weerarkaas uu ahaa kii ugu xumaa ee dunida ee xigay 11 Sebtembar. Si kasta, xaaladda amniga ee aan kalsoonida badan lahayn ee jirta, dadka reer Muqdisho waxa ay haystaan rajo ay ku nool yihiin marxalad kasta, taas oo wax badan ka bedeli karta qalbiyadooda. Maxamed Bishaar Barre Jaamac, Goobjoog, Muqdisho.